daawadayaal taariikhda caawa waa 26 bishii 11aad qodobada wararka ugu waaweyn ee aan nahayna waxaa ka mid ah shidaalka caalamka oo hoos u sii dhacaya qiimihiisii fuusadii markii hore joogtay $85 haddana waxaa la sheegayaa ilaa maanta inay hoos u soo dhacday $77 kadib markii dowladaha reer galbeedka oo hogaaminaysa dowladda Mareykanku ay ku dhawaaqeen in wax soo saarka shidaalka ee dowladda Ruushka booskooda la buuxin doono hadalkaas oo ka careysiiyay Moscow. daawadayaal arrinkan wuxuu daba socdaa markii madaxweynaha dowladda Mareykanku ku dhawaaqay wax soo saarka saliidda cayriin ee dowladda Ruushka in booskeeda la buuxin doono, laakiin soo faahfaahin ka bixin dowladaha arrinkaas sameyn doona. Sidoo kale madaxweynaha dowladda Ruushka ayaa wada abaabul weyn oo ciidan isagoo la kulmaya saraakiisha ciidanka iyo madaxda gobollada dalkaas ee Ruushka iyo kuwa amniga qaabilsanba. daawadayaal madaxweynaha dowladda Ruushka ayaa soo bandhigay hubkiisa noocii ugu dambeeyay. ciidamada dowladda Ruushka ayaa lagu wareejiyay qorigan oo la yiraahdo magaciisa BM30 Smash, wuxuuna leeyahay 8 dhuumood wuxuuna leeyahay 11 dhuumood. daawadayaal qorigan waa qori laga hagayo qaab kombiyuutareysan loo hagayo oo rag khubaro loo soo tababaray ay ku shaqeynayaan. waxaana loogu talagalay in uu ka hortago qoriga dowladda Ukraine ay siisay dowladda Mareykanka oo la yiraahdo HIMARS oo 70 kilomitir gaaro, laakiin kan waxaa la sheegayaa ilaa 120-130 kilomitir inuu gaaro. istiraatiijiyadda dagaalka ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda Ruushka wax badan ayuu ka bedelay. dowladda Ruushka labadii wiig ilaa 3 wiig ugu dambeeyay daawadayaal waxay waday tababar aad u xoogan ka wado gudaha dalka Ruushka iyo gaar ahaan dalka Ukraine gobollada ay ka haystaan sida gobolka Donbass. sidoo kale jamhadihii dowladda Ruushka la socday ayaa la barayaa dagaalka noocyadiisa kala duwan. daawadayaal madaxweynihii hore ee dowladda Ruushka iyo saraakiil la socota iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa waxay booqdeen warshadaha soo saara gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada sareba, waxaana sare loogu qaaday oo la dardargeliyey in gantaalada badan la soo saaro lana casriyeeyo. arrinkaas oo ka yimid madaxweynaha dowladda Ruushka markuu ku dhawaaqay 3 bilood ka hor. haddana waxaa socda wax soo saarkii iyo productionkii gantaalada dowladda Ruushka. daawadayaal sida ogtihiinba sanadkan ugu jiro bishii labaad waxay dagaal ku qaaday dalka Ukraine. dagaalkaas wajiyo badan soo maray, inkastoo dhaqaalo badan uga baxay, ciidan fara badan ay ugu dhinteen, laakiin waxaa la ogyahay dagaalka dowladda Ukraine kaligeed inaysan ku jirin oo dowladda Ukraine la hubinayo dhaqaale iyo hubba la siinayo in ay garab taagan yihiin dowladaha reer galbeed qaar ka mid ah sida ay ugu tuwan yihiin dowladda Mareykanka iyo dowladda Faransiiska iyo Ingiriiska. daawadayaal dagaalkii fara kama qodna. waxaa kaloo ciidamada Ruushka keeneen qoryo fudud oo maaragtay oo la barayo jamhadihii la socday dowladda Ruushka. arrinkan waxay isku diyaarinayaan dowladda Ruushka in weerar weyn ay soo qaadaan bisha koowaad ama labaad sanadka soo socda haddii ay beedmo. dowladda Ruushka waxay hadda tababaro u fudhay kala duwan ciidamadii la socday ee jamhadihii waxaa la barayaa gantaalada laga rido garabka iyo kuwa dhulka maaragtay inta la dhigo la dhex gelinayo fuuqa. daawadayaal dagaalka waxa uu hadda yeeshay wajiyo badan. dowladaha reer galbeedka laftigooda dhawaatis waxay ka sameynayaan dhinaca Poland. ciidamo fara badan ayay soo dhigeen, laakiin dowladda Ruushka wax jawaab ilaa ay hadda ma siin. dowladihii reer galbeedka waxay leeyihiin haddii dowladda Ruushka ay qabsato Ukraine amniga Yurub wuxuu gelayaa khatar. waa si ayagu hadalka u dhigeen oo iska dhaadhiceen, laakiin dowladda Ruushka waxay leedahay dalka Ukraine waa hooyadii Ruushka, waa lama taabtaan. reer galbeedku ma soo gelin karaan. waxa weeye naasiin baa lagu abuuraya, cadowga ayaa maaragtay dowladda Ruushka ayaa albaabkeeda loo keenaya. intaan arrintaasoo dhicin madaxweynaha dowladda Ruushka sanadka hore markuu dagaalka qaadayay waxaa ka mid ah khudbadihii uu soo jeediyey in wadanka Ukraine uu yahay wadankii hooyadii maaragtay federaalka Ruushka. aysan macquul ahayn in naasiyiin iyo caloosho shaqaystayaal iswata ay qabsadaan. daawadayaal dowladda Ruushka waxay soo bandhigtay sidoo kale qoriga BM-ka iyo qorigan gaariga taangiga laga ridayo oo 18 dhuumood leh oo baabiyey goobihii ka fadhiyeen ciidamada Ukrainiyiintu. ciidanka Ruushka aad waxay ugu xogan yihiin gobolada bariga. ciidamo fara badan ayaa jooga haddana lagu soo daabulay
Sidoo kale waxaa la rajeynayaa in dagaalka laga soo bilaabo dhinaca Belarusia oo ciidamo badan maaragtay halka ay ka joogaan. Diyaaradihii droonka ee dalka Iran ay samayn jirtay oo hadda lagu samayn doono dalka Russia ayaa iyagana dhowaan waxaa laga yaabaa in dagaalka kusoo biiraan 2 bilood oo soo socota ilaa 3 bilood. Waxaa kaloo macquul ah in dowladda Russia ay adeegsato hubka sida badan wax u gumaada ee nuclear-ka. Daawadayaal, haddii dagaalkan uu sii dheeraado, adduunka wuxuu geli doonaa dhaqaalihiisu isbeddel weyn baa ku imaan doona maciishada sida raashinka iyo shidaalka. Sidoo kale dowladda Russian-ku waxay hadda soo bandhigtay diyaarado casri ah oo gantaalada hypersonic ay ka dhacayaan, dhoolatus ay sameeyeen. Diyaaradihii F-35-ka iyo Sukhoi 50 iyo Sukhoi 30 wax oo dhan waa lasoo howlgeliyey. Dhinaca kale dalka Ukraine waxaa la gubay warshadii ugu weyneyd ee koronto tamarta dalkaas. Waddanka oo dhanna waa maaragtay mugdi, gaar ahaan caasimadda Kiev. Gantaalo badan ayaa ku socday ilaa iyo xalay ilaa iyo wiigan gudihiisiba. Wax korontana ma laha. Xilliga qaboobaha ayaa la galay, dadku waxa ay shitaan male, gaaska la shito ma laha. Meel laga dhalin karo oo maaragtay heater ma leh. Daawadayaal, arrinkan wuxuu marka u egyahay inuu maaragtay awoodii haddii lagaa